barnaamijkan oo ahaa dood wadaag looga hadlayay sidii dhalinyarada ay kaga qayb qaadan lahaayeen arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda tubta nabadda oo kaashanaysa hay-adda Life and Peace Institute waxaana maalgeliyay sanduuqa nabad dhisidda qaramada midoobay. doodan waxaa ka qayb galay oo su'aalo lagu weydiinayay nabadoon Axmed Colow Beerey, xildhibaan Ibraahim Sheekh Saalax, wasiir ku-xigeenka ciyaaraha iyo dhalinyarada xildhibaan Cumar Maxamed Cumar, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe Fartuun Aadan Xeefow. sidoo kale waxaa ka qayb galay dooda ganacsato, odayaal dhaqameed, haween, dhalinyaro iyo dhalinyarada ay tababartay hay-adda tubta nabadda. dhalinyarada, haweenka iyo odayaashii ka soo qayb galay halkaas ayaa su'aalo weydiiyay martida barnaamijka dood wadaaga oo hay-adda tubta nabadda ay qabatay. su'aalihii ay weydiinayeen waxay ahaayeen xildhibaanada noo qaadatan waa fadhiyaan arrintii iyada ahayd oo karti la'aanta iyo igagayda ahayd waxaan rabaa wixii ka bedeli kartiin maanta inaad dhalinyarada u sheegtiin markee kursad waxaa ugu fadhidaa dhalinyaro waxaa ugu fadhidaa hooyo oo adig soo barbaarisay marka arrintii hore waxaa ka bedelaysiin oo qorshe oo idiin degsan dhalinyarada inoo sheega ayaan idinka codsanayaa. meeshaan waxaa jooga dhalinyaro fara badan dhalinyaradaas oo kasoo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmadeeda Jowhar dhalinyaradaas oo gobolka wax u baratay iyo degmadeedaba ana sidaas ay tahayna percentage-kooda iyo number-koodana aad u badan yahay isugu jiraan gabdho iyo wiilal oo wax bartay oo ka soo qalin jibiyeen haddana mararka qaar waxaa dhacdo in dhalinyaradaas wax barateen oo haddana maaragtay familkoodii iyo maaragtay reerkoodii ay ku dadaaleen oo juhdi iyo maaragtay qarash badan lagu soo bixiyay haddana maanta ay magaalada Baagamuudo ay ku yihiin waxna barteen cilmina u leh mararka qaarna markii loo baado shaqooyin ama nin ha noqdo xildhibaan ama nin ha noqdo wasiir inuu secretary ama nin oo howlwadeen waa inuu Muqdisho ka keeno waay maxaa sababay in dhalinyaradeennii u dhabar adeegtay wax soo baratay in ay Baagamuudo aanu salaam calaykum. martidii ka soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen nabadoon Axmed Colow Beerey, xildhibaan Ibraahim Sheekh Saalax, gudoomiyaha dhalinyarada Fartuun Aadan Xeefow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan Cumar Maxamed Cumar ayaa ka jawaabay su'aalihii ay weydiinayeen ka soo qaybgalayaasha barnaamijka dood wadaaga ee hay-adda tubta nabadda magaalada Jowhar maanta ku qabatay. dhalinyarta waxaa lagu qiyaasaa 75% inay bulshada qaybteeda ayaga ay yihiin doorka oo amba nabadaynta amba wax qabadka Soomaaliya say u qayb qaadan karaan markay naqatane qaybta ugu badan ayaga kule qaybaha bulshada hadii 75% ayaga ay yihiin 25 bulshada kale ay tahay meeshaas ay ka muuqataa doorka ay ku leeyihiin bulshada gudaheeda hadii nabadda Soomaaliya in la raadiyo la rabane dadka ay ka kacayso oo nabadda laga rabo ayaga waayay hadii inay wax qasaan ay rabaan waxa wax qasi kara ayaga waayay marka doorka ugu muhiimsan dhalinyarta iskale hadii wax qabad ay tahay iyo hadii ay nabadayn tahay waxaadna ku ogaan kartaa hadda maanta fatahaadaha socdo waxaan qiyaasayaa qof adiga da'deeda 50 sano ay ka weynta amba 40 sano ay ka weyn tahay waxay ka qaban kartaa mar haddii webigaas amba loor la saarayo amba bir lagu xiraayo dadka waaweyn waxay ku yeelan karaan talay ku yeelan karaan laakiin hawsha amba maskax ahaan amba xoog ahaan waxa ay ku dhaqaaqayo oo laga rabo waa dhalinyarada. waa su'aal meesha ku jirto su'aasha uu shariifna weydiiyey horta wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga marka la yiraahdo shaqadeedu waxay noqonay arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha isboortiga wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dawladna waxay yihiin siyaasiyiin horta qof walba shaqadiisa aan ogaano arrimaha la kulanka dhalinyarada ama in la awaawulo dhalinyarada howlaha way kala sarsareeyaan wasaaradda dhalinyarada waxay u qaabilsan tahay dhanka siyaasad ahaan wixii dhalinyartaas dhexdeeda ama in la awaawulo ama in howlo loo qabto waxaa kaga hooseeyo gudoomiyayaal ama ha noqdaan gobol ama ha noqdaan degmo saasay isugu jiraan. horta siyaasadda dhalinyarada markii la yiraahdo door fiican ay ku leeyihiin oo door muuqdo oo waliba tusaale aan u soo qaadan karno markii la yiraahdo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qayb ay ka yihiin rag dhalinyaro ah oo u badan muhiimad gaar ah leedahay. doorka kale inta siyaasadda ay ku leeyihiin waxaa kamid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ku leeyihiin door muuqdo waxay ka siyaasad ay ku leeyihiin door muuqdo siyaasadda guud ahaan markii la yiraahdo Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle
tan kale intuu caqabada markaan usoo gudbo caqabada way jiraan caqabadahaas waxaa sabab u ah in lagu aaneeyo qabiil oo kale intuu calashaan oo la yiraahdo qofkan asagoo qofkan position markii la soo bandhigo kale oo positionkaas la yiraahdo waa position aad u fiican qof dhalinyaro ah markuu soo codsado oo laga yaabay la yiraahdo qofkan qabiil hebel ma ahan waxa loo baahan yahay qabiilkaas kale intuu caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada niyadjabka ku rido waa in loo nasbeeyo qabiil ayagoo shaqo soo codsaday